kulan wanaagsan saaxiibada qiimaha badan halkan waa Rugsan Somali TV waxaad ku soo dhawaataan wararka ugu waaweyn ee ramada midoobay oo wafdi sare u soo dirtay magaalada Muqdisho kadib fashilkii shirka golaha wada tashiga qaran Puntland oo eedeyn u jeedisay dowladda federaalka Soomaaliya maxay tahay sababta keentay in xilligan Puntland ay digniin jeediso qodobada kale waxaa ka mid noqonaya lafta gareen oo ka tagay Muqdisho kadib fashilkii ku yimid shirkii golaha wada tashiga qaran sidoo kale waxaa daawan doontaan gaari siday qarax oo la burburiyay kadib markii la helay xogta ku saabsan iyo ra'iisul wasaare Xamza oo shaaciyay go'aan la xiriira doorasho qof iyo cod ah in dalka ay ka qabsoomayso qodobada iyo wixii nagu soo kordha ayaad warkayaga ku daawan doontaan isku soo noqod wanaagsan waa 17 Oktoobar sanadka 2024 qodobada daawateen oo faahfaahsan ku soo dhawaada haddii aynu ku bilowno qaramada midoobay ayaa wafdi sare u soo dirtay magaalada Muqdisho kadib fashilkii ku yimid shirka golaha wada tashiga qaran waxaa maanta magaalada Muqdisho soo gaaray wafdi sare oo ka socda qaramada midoobay kaas oo ay hogaaminayso Marwe Rosary Di Carlo oo ah ku xigeenka xogayaha guud ee qaramada midoobay arrimaha siyaasadda iyo dhismaha nabadda Marwe Di Carlo ayaa waxa garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho ku soo dhaweeyay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Danjire Axmed Macalin Fiqi iyo kusimaha wakiilka gaarka qaramada midoobay Soomaaliya Ambassador James Swan wasiir Fiqi ayaa kula gaar waxa uu la yeeshay Marwe Di Carlo waxa uu kaga warbixiyay horumarka dhawaan laga gaaray Soomaaliya gaar ahaan dhinaca amniga wada hadallada waxa xoog lagu saaray dib u bilaabista shirarka golaha wada tashiga qaran NCC oo lagu wado in mar kale uu furmo 26 bishan Oktoobar sidoo kale waxay ka wada hadleen geedi socodka kala guurka Soomaaliya ee ku wajahan howlgalka markana haddii aynu fiirino Puntland ayaa eedeyn culus waxay u soo jeedisay dowladda federaalka Soomaaliya madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Puntland Elias Lugatur oo wariyaasha kula hadlay magaalada Garowe ayaa eedeyn culus u jeediyay dowladda federaalka Soomaaliya oo haatan ay kala dhaxayso xiisad siyaasadeed oo aad u xoogan Elias Lugatur ayaa dowladda dhexe ku eedeeyay in dhaqaale ay ku bixinayso qalalaaso iyo sidoo kale deganaansho la'aan inay ku abuurto deegaanada Puntland madaxweyne ku xigeenka ayaa soo hadal qaaday xiisad ka taagan gobolka Sanaag waxaana tilmaamay inay ka warhayaan in ay ku lug leedahay shakhsiyaad ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya oo ku eedeeyay in arrinka ay hurinayaan sidoo kale waxa uu intaasi ku daray in hay'adda amniga Puntland ay u fasaxan yihiin inay tallaabo adag ka qaadaan cid kasta oo ka shaqeynaysa dhibaato ka dhacda deegaanada maamulkaas waxaan farayaa in madaxda ay la soo xiriiraan si tallaabo looga qaado ayuu yiri waxa uu hoosta ka xariiqay in qorshaha uu qayb ka yahay abaabulka ay wado dowladda dhexe ee Soomaaliya kaas oo ay doonayso inay ku beegsato maamulada dalka ka jira qaybihii dhexe wararkayaga ayaan isla soo gaarnay markaana wararka naga soo gaaraya gobolka Bakool ayaa sheegaya in ciidamada xoogga dalka gaar ahaan guutada 9aad qaybta 6aad ay ka hortageen weerar culus oo ay damacsanayeen al-shabaab inay ku qaadaan degmada Xudur ee gobolka Bakool wararka ayaa xogtaasi waxay ku darayaan in laga hortagay isla markaana gaarigaasi la fashilay waxaana la burburiyay gaariga al-shabaab qaraxyada ay ka soo buuxiyeen oo ay doonayeen inay ku weeraraan magaalada sida ay sheegeen maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya sidoo kale waxaa laga hortagay kooxdii iyadoo qorsheynaysa weerarka in ay halkaasi ka fuliso qaraxyada qoraal ka soo baxay taliska ciidamada xoogga dalka ayaa lagu faahfaahiyay weerarkan iyo sidoo kale fashilka ku yimid ee ka dhacay deegaanka Lukogorow oo Xudur u dhow ciidanka oo helay xogta argagixisada ayaa la yiri deegaanka Lugokorow oo qiyaastii u jira 20 kiiloomitir degmada Xudur waxay ku burburiyeen maleeshiyaadka damacsanaa in weerarkan ay fuliyaan ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay war-saxaafadeedka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya saraakiisha hogaaminaysay ciidamada ayaa sidoo kale waxa ay shaaca ka qaaday in khasaare baaxad leh gaarsiiyeen al-shabaab kuwaas oo ku socday ama ku wajahna degmada Xudur xilli weerar ay qorsheynayeen xaaladda ayaa haatan mid kacsan waxaana wali goobihii lagu dagaalamay ku sugan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya kuwaas oo wada howlgallo lagu xaqiijinayo amniga gobolada Bakool wali waxaa ka soconaya meelaha qaarkood dagaalada al-shabaab ay la galayaan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ugu dambeyntiina madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Lafta Gareen ayaa ku laabtay magaalada Baydhabo ee gobolka Bay halkaas oo si weyn loogu soo dhaweeyay Lafta Gareen ayaa Muqdisho muddo ku sugnaa isagoo qayb ka ahaa madaxda ka qayb gashay shirka madasha wada tashiga qaran waxaana uu dib ugu laabtay magaalada Baydhabo ee gobolka Bay kadib fashilkii ku yimid shirka madasha wada tashiga qaran
madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Laftagareen ayaa markii horeba isagoo aan ku qanacsanayn qayb ka noqday shirka madasha wadatashiga qaran kadib markii General Mahad isagu uu ku qanciyay in shirka uu yimaado. koonfur galbeed Soomaaliya iyadu hadda waxay doonaysaa in doorasho ay ka madax bannaantahay dowladda federaalka Soomaaliya ay qabsato halka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo kooxdiisana ay qorsheynayaan in doorasho iyadu gacmaha ay kula jirto ay qabsato waana sababta keentay in maamulada Puntland iyo sidoo kale Jubbaland ay barnaanka ka istaagaan shirkii madasha wadatashiga qaran. Jubbaland ayaa iyadu waxay qorsheynaysaa markan bisha soo aadanba in doorashadeeda ay qabsato iyadoo ka madax bannaan dowladda dhexe ee Soomaaliya. qaramada midoobay ayaa dhinaceeda waxay hadda wada dadaalo ku aadan sidii guud ahaanba xal looga gaari lahaa khilaafka siyaasadeed ee ku yimid fashilkii shirka madasha wadatashiga qaran oo loo balansan yahay in 26 bishan uu mar kale dib kaga bilowdo magaalada Muqdisho. madaxda kala duwan ee maamulada ayaa iyagu markaan dib u soo laaban doona iyadoo aan loogeyn in Axmed Madoobe lagu qancin doono in mar kale uu yimaado.